ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، marka hore sheekh iyo caalim iyo daaci saddexdaa erayba waa ka cudur daaranayaa. runtii sheikhul cilmi iyo sheikhu sinni labada midna ma yihi, daacina ma yihi, caalimna ma yihi. haddii laga maarmi waayo waxaa la dhihi karaa muballiq. muballiqu waa qofka wax loo soo dhiibay, wixii loo soo dhiibay ummadda u sheegaya. wixii annagu culimmadeenna aan ka maqalay ee cilmi ah, ee khayr ah, ee wanaag ah, ee dhiirigelin diineed ah, baan dadka walaalaha iyo gaadhsiinaa si ilaahay annagana noo hadeeyo oo noo islaaxiyo, iyakuna ay u islaaxaan. marka jazaakum allahu khayr baan leeyahay dadkan macallimiinteenan madrasadan gacanta ku haysta iyo dadka xaafadaba saad noo soo dhaweyseen. waa ilaahay baa abaal iyo ajar inaga siinaya. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أحكامت إسلامك إلهي وحو نوغو سو دجيي si aan adduunkan iyo aakhiro ay nolosheennu noogu hagaagto. awlaadda aan haysanee ilaahayna siiyey iyo hantida adduunyada dul taalla ee qof walba uu haysto intuu doonay ha ka haystee, ayadana waxaa loo siiyey si laynoogu imtixaamo. shay waxaa lagu siiyey si aad ugu liibaanto oo noloshaada adduunyada iyo aakhiradu ay ugu hagaagto, ugu toosto. shayga kalena waxaa lagugu siiyey adduunka intaad joogto lagugu siiyey si adduunka dusheeda lagugu ikhtibaaro, lagugu ibtileeyo. qur-aankaana inoo kala sheegay oo yidhi: laqad anzalnaa ilaykum kitaaban fiihi dikrukum afalaa tacqiluuna baa ilaahay yidhi. laqad anzalnaa waan soo dejinnay ilaykum xaggiinna kitaaban baan nii soo dejinnay baa ilaahay yidhi. kitaabka qur-aanku waa munazal fiihi dikrukum. kitaabka dhexdiisana waxaan ku dhex dhignay oo dhexdiisa ahaaday baa ilaahay leeyahay sharaftiinnii iyo karaamadiinnii baa qur-aanka ku dhex jirta ilaahay yidhi. afalaa tacqiluun, miyaanad dad caqli la-aanad ahayn baa ilaahayna leeyahay. اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وقاذا با إلهي إليها إنك لما هي حولهنا يا أولادين وفتنة ويان. إلهي أكتي سنة واحد كالذين با إلهي أجر وين يا مش قايد وين بات كالذين با إلهي فتنة وحال إلى هدفك أدونك إلهي كوك إن الشيء كمشغولية أيا فتنة إلى فتنة. marka awlaadu ayakoo nicmad haddana mar walba nicmad ay tahay ilaahayna siiyey, haddana waa fidnad weeyaano waa laynagu fidnaynayaayo mar walba qalbigii xaggooda ayuu aadayaa. salaada dhexdeedii baad ku xasuusan, qur-aanka adoo akhrisanayaad ubadkaaga xasuusan. adduunyada kale dukaan hadduu qofku leeyahayna salaada dhexdeeda laga yaabaa inuu dukaankiisa ku xisaabiyaba. marka fitna waxaa la yidhaahdaa waa waxaa hadafkii adduunka alla uu kuu keentay kaa leexinaya fidna la yidhaahdaa. marka axkaamta ilaahay wuxuu noogu soo dejiyey. axkaamtu waa maxay? iimaanka, iimaaniyaadka iyo cibaadaadka
iyo maaragtaanay mucaamalaadka iyo mucaasharaadka iyo akhlaaqiyaadka iyo alxukm walqadaa waa inta ay shareecada islaamku ay ku fadhiday weeyaan intaas shareecada islaamku kama baxsanay bay culimadu leeyihiin iimaaniyaad waa alcaqaa'id qalbiga iimaaniyaadku ayay ku tacalluqaan dadku ilaahay ay rumeeyaan oo malaa'igta ay rumeeyaan oo rususha alla soo dirayna ay rumeeyaan oo kutubta ilaahay soo dejiyeyna ay rumeeyaan oo maalinka aakhirada ee dambaysa yowmal qiyaamahana ay rumeeyaan khayr iyo shar waxa adduunyada ka dhacayana inay rumeeyaan inuu ilaahay qadaray cibaadaadka salaada ayaa kamida oo soonka kamida oo zakada kamida oo xajka kamida iyo wixii kale ee soo raaca faraa'id kale iyo sunan kale ayakuna waa cibaadada ilaahay loogu dhawaanayo mucaamalaad waxaa la yiraahdaa dhaqanka adiga iyo mujtamaca aad ku dhex nooshahay nigala dhexeeya mucaamalaad la yiraahdaa dadka aad dariska aad tihiin iyo dadka aad shaqo adduunyo ayna dhex marto iyo dadka mucaamalaad oo ayna dhex maraan ama dadka aad wada shurukowdaan dadka aad la ballantid dadka maaragtaane saaxiibada aad tihiin inaad akhlaaq dhaqan wanaagsan oo diiniya aad mar walba kula dhaqantaa ayaa mucaamalaad la yiraahdaa mucaasharaadkuna waa nolosha aqalka dhexdeeda weeyaan qoyska sida ninku naag xaaskiisa ula dhaqmayo sida xaasku xaaskeeda ula dhaqmayso sida ilmuhu aabbihi ula dhaqmayo sida ilmuhuna aabbihi hooyo ula dhaqmayo sida walaashu walaalkeed ula dhaqmayso sida qaraabada loola dhaqmayo mucaasharaad noloshaasi cishra la yiraahdaa akhlaaqiyaadkuna waxa weeyaan khalqigan ilaahay nagula abuuray adduunka oo dhan waa inaan xuquuqdooda iska ilaalinaa akhlaaq wanaagsanna aan kula dhaqanaa alxukmu walqadaana waa maxay waa in shareecada islaamka la fuliyaa oo dadku sharciga islaamka ay ku dhaqmaan ay ku camal falaan marka axkaamtaasi ayaa bini aadanka ilaahay u soo dejiyey hadday dadku axkaamta ay raacaanna way hagaagayaan adduunkooga u hagaagi aakhiradooda ayaa u hagaagi hadday dadku axkaamta ilaahay soo dejiyey ay raaci waayaan adduunyadooduna waa ka khasaare way ka halaabi aakhiraduna way ka halaabi walaalayaal oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam baa inoo sheegoo yidhi man kaanat iddunyaa hamahu jacalahu allahu alfaqra bayna caynayhi walam yatihi wafaraqa allahu shamlahu walam yatihi min addunyaa ilaa maa kutiba lahu qofka hamigiisa ka dhiga buu nabigu leeyahay adduunyo kaanat iddunyaa hamuhu labada indhood dhexdooda faqriga baahi loo saaraa umuurtiisana ilaahay barya galbeedba ku kala shaydhiyaa umuurtiisoo dhanna waa la kala tuuraayo waa la kala daadiyaa adduunyadana ma hela buu nabigu yidhi ilaa wix ilaahay u qadaray mooyaane qofka aakhirada ka dhiga hamigiisana ee aakhirada ilaahay wuxuu la hortagaya ka fikira ee iimaaniyaadka iyo cibaadaadka iyo taacadda ilaahay ku dadaalana faqriga ilaahay waa ka saaraa qalbigiisa oo qina ayaa loo geliyaa qalbigiisa umuurtiisoo dhanna ilaahay jalla wacalaa waa iskugu soo ururiyaayo arrimihiisa waa la isku soo dhadhaweeyaa adduunyaduna iyadoo dullaysan bay hoos timaadaa buu rasuulku yidhi marka axkaamtaas qaar baa jirta axkaam rag iyo dumarkuba ay ka siman yihiin oo waxaa ka mid a iimaaniyaadka xagga iimaaniyaadka waan ka simanahay oo iimaaniyaad ragga u gaara inay aaminaan oo dumarka laga dhaafay ma jiree dumarkuna arkaan aliimaanka waa inay ilaahay iyo maaragtaane iyo wixii ka farcama iimaaniyaadka waa inay la yimaadaan cibaadaadka kadaalika haween iyo ragba waa laga rabaa akhlaaqda wanaagsana rag iyo dumarba waa laga rabaa laakiin waxaa jira axkaam haweenka u khaasa ayaa jirto ragga aan khusaynin axkaamta haweenka u khaasa waxaa ka mid ah waqarna fii buyuutikunna baa ilaahay yidhi gabadhu inay gurigeeda ku ekaato oo gurigeeda ay dhex joogto oo axkaamta haweenka u khaasa weeyaan oo aqalada haweenku 3 aqal unbay leeyihiin aqalka aabaheeday ku dhalatay iyo aqalka ninkeeda iyo qabrigeeda 3 aqal unbay haweenku ay leeyihiin aqal afraad haweenku ma leh laana 3 meelood baa haweenka loogu talagalay inay ka dhaxeeyaan
aqalka aabaheeday ku dhalatay halkaasay ku jiri bay ku barbaari waa lagu tarbiyadayn man cala jaariyatayni xataa tabluqa ana wahuwa ka haatayni fi ljanna buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam ninka laba hablood ay u dhasheen ee barbaariyey ee koriyey ee tarbiyadoodana wanaajiyey baa rasuulku yidhi aniga isagu labadaa farood buu nabigu isku qabtay farta la yidhaahdo murdisada iyo fardhaxada labadaa farood buu nabigu isku qabtay calayhi salaatu wasalaam sida labadaa farood ay iskugu xigaan ayaa ninka laba hablood ay u dhalatay labadaa hablood tarbiyadeeyey ee tarbiyadooda wanaajiya aniga isaguna jannada sidaasaan isku nahay buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam tarbiyadda aabbaha iyo hooyada ayaa tarbiyadda ka mas-uula inanta asbaabta lagu tarbiyadayna waxaa ka kow ah inay inantu noqoto inan guri joogu aqalkeeda fadhida tabaruj aljaahiliya lama ogolo gabadhu inay ragga dhex socoto lama ogolo inay suuqa wareegtana lama ogolo inay bilaa astur aqalka ay ka baxdana lama ogolo dharkay qaadanaysana ilaahay baa qur-aanka ku sheegay waa axkaamta haweenka ayadan labaadee u khaasa weeyaan xukunka koobaad waxa weeyaan waqarna fii buyuutikunna inay gabadhu ahaato gabadh gurigeeda joogto gurigeeda aanan ka baxaynin siirada waxaa ku taalla haween 40 sano aan aqaladooda ka soo bixin bay kutubtu sheegtay 40 sannadood dibadda ma istaagin baa lagu leeyahay qaar waxaa la sheegay 20 sano masalladii ay ku dul tukanaysay aanan ka dulkicin xafsata binti siriin baa ka mid ah radiallahu canha imaam maxamed ibni siriin walaashii masalladay ku dul tukanaysay 20 sano iyo dusheeda fadhiday baa la yidhi qaraartiina way soomanayd habeenkiina salaatuleyl bay u taagnayd 2 mar unbay masalladeeda ka dulkacaysay markay yar jiibsanayso oo meel dheerba ma tegayna masallada dhinaceega unbay jiibsanaysay baa la yidhi iyo marka maaragtaanay bani aadanka xaajadu markay qabato ay u yarkacaan ay soo xaajoodaan labadaa xilli unbay masalladeeda ka dulkacaysaa la yidhi gabadha guriga inay joogtaan lagu ammaanay waqarna fii buyuutikunna waa sifadaasi waa sifo qaali oo qiimo badan weeyaan oo gabadha qiimay u yeelaysaa haddee gabadhu axkaamta ilaahay ay raacdo gabadhu qiimo yeelan oo qadar bay yeelan xuurun maqsuuraatun fi lkhiyaama ilaahay xuur weeyaan waa xuurulcaynta ilaahay markuu ka warramaya sifaadka xuuralcayntu ay leedahayna sifada xuuralcaynta lagu ammaanay waxaa ka mid a xuurun maqsuuraatun fi lkhiyaam khaymadahooday ku kooban yihiinoo kama baxaan baa ilaahay yidhi adigana waxaa lagu amray oo lagu yidhi aqalkay inanta muuminada gabadha muuminada iimaanka leh meesha lagu yaqaanaa inay ku qarsoon tahay mar walba fadhida waa aqalka maxaa gabadha muuminada aqalka ha fadhida loo yidhi waa dhayman bal dhayman bay ka qaalisan tahay waa dahab bal dahab bay ka qaalisan tahayoo meel adag baa la dhigaa waxyaabaha qaaliga diinta islaamku gabadha muuminada qaali bay ka dhigtay deedna meel adag bay diinta islaamku ay ku dhigtay halkaasaa calafkaaga ilaahay kuugu keenay kullamaa gabadha muuminadu bannaanka ay u baxdo way qiimo dhacaysaa baa la yidhi kullamaa inantu ay aqalka ay fadhido amarka ilaahay qaadatana qiimaheega ayaa kordhaya gabadha diinta ku dhaqantay diinta danaysana awlaadda ilaahay kasoo dhex saaraya caloosheeda badanaa waxay noqdaan awlaad culamaayo oo rabbaaniyiina bay noqdaan waqarna fii buyuutikunna baa ilaahay yidhi waxaa kaloo nebigeennu uu ka digay sal allahu calay wasalam haween buu nebigu sheegay xilligiisii adduunka aanan joogin iman doona buu nebigu yihi aakhira zamaanka waa kuwa nuuceeya dhar bay moodeen inay xidhan yihiin buu nebigu yihi kaasiyaatun caariyaat way huwan yihiin dharkoo way xidhan yihiin laakiin waa qaawo yihiin buu rasuulku yidhi dharkay xidhanayaan baa dhar khafiifa ah ama dharkay xidhanayaan baa dhar ku dhajisan ah deedna cawradoodiibuu bannaanka dharkaas u soo saarayaa maa'ilaatun mumilaat baa nebigu waa kuwa qalloocan oo markay dariiqa marayaanna way isqalloociyaan ragga meelaha joogana way qalloociyaan buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam oo siday raggu usii eegayaan ay isha ula sii raacayaan ayaa iyakuna la qalloocsamayaan kuwa noocaasa buu nebigu yihi jannada gali maayaan
carfiga jannadana heli maayaan buu yidhi. janno inay galaan iska daaye udgoonka jannadana heli maayaan buu rasuulku yidhi. udgoonka jannadana 500 oo sano meel jannada ay ka dhowdahay marka loo jiro ayaa la uriyaa buu nabigu yidhi carfigeeda. jannada inay galaan iska dhaafe carfiga jannadana kuwaasi heli maayaan. zamankana waad u jeedaanoo bannaankaasee gabdho badan ay tuman yihiin u baxeen. deedna maaragtaan axaadiista nabigeena sallallahu alayhi wasallam baa ku cadaatay inay kuwa nabigu sheegay iyaga ay yihiin. gabadha muuminada waxaa kaloo laga rabaa jilbaab inay qaadato. jilbaabku waa maxay? waa maro haddii ay xidhato bay culimmadu leeyihiin xaggeeda hore iyo xaggeeda dambe aan la kala garanayn, inay inan tahay iyo inay islaan duqa tahayna aan la kala garanayn. waa maro maaragtaan ka weyn jidhkeega ka weyn oo gabadhu ay dhex soconayso. deedna maradaasaa ilaahay gabadha muuminada ku qiimeeyey. yudniina calayhina min jalaabiibihinna dalika adnaa an yucrafna falaa yu'dayn wa kaana allahu gafuuran raxiima baa ilaahay yidhi. markay gabdhuhu ay xidhaan quruxdooda ilaahay casa wajalla u joojinayaa. hadday qurux u dhalatana quruxdeedii bay asturatay oo gaboobi maysa baa layidhi. gabadha jilbaabka qaadatay jilbaabka ku barbaarta quruxdeeda ilaahay waa u ilaaliyaa. maadaama amarka ilaahay iyaduna ilaalisay iyadana xubnaheega waa loo ilaalin. ixfad illaaha yaxfadka bay galaysaa. ilaahay baa yidhi xadiis alqudsi, xadiiskaa nabigeenna yidhi sal alla alay wasalam, ilaahay amarkiisa ilaali adigana ilaahay baa ku ilaalin. hadday gabadhu shareecadda islaamka ay ku dhaqanto xoogeeda iyo quruxdeeda ilaahay baa u ilaalin. waxaa la arkoo la sheegay haweenay 15 ubada dhashay ayadiyo ubadkeegiina ay isku eg yihiin isla eg yihiin. hablehay ay dhashay dhex fadhiisatay hooyadood waa laga soo sooci waayey. dumarkii u tegay ee buuqday way ka dhex garan waayeen. ilaa lagu marmoo la yidhaahdo ma walaalaatihiin oo tan matiinii ugu weynaydba maya iyadii baa le maya waa hooyo weeyaan. markaasaa la yaaboo lagu yidhi hablahaaga waad isku eg tihiin, waad isku jidhna waa tihiin, maxay see wax u jiraan? waxay tidhi yaraantaydii dharkii la ii geliyey ayaan xidhanahay tidhi aqalna kama bixin bay tidhi. maadaaman amarka ilaahay anigu aan ilaaliyey ilaahay quruxdaydii iyo quwadaydiina isagaa ii dhowro u ilaaliyey tidhi. gabadha bannaanka hadday u baxdo waxay la mid tahay baa la yidhi oo ragga ay mar walba ragga hor soo socoto waxay la mid tahay fulka ubaxa yar ee geedka dushiisa ka baxa. hadduu ubaxaasi uu geedka ka soo dhaco uu dharaa baa la yidhi uu dharaa. deedna markaaba cadceedda ayaa iyo dabaysha ayaa saamaysa. laakiin ubaxu geedka dushiisa hadduu ku yaallo dadka oo dhan baa milicsano sidaasaa loo eegaya dhalaalkiisa iyo quruxdiisa oo isha oo dhan baa markaas il kastoo meesha maraysa way daymoon. waxaa la yidhi gabadhu markay shareecadda islaamka ay ku dhaqmayso quruxdeeda ilaahay waa u ilaalin waana u joojin oo quwadeedana waa ilaahay waa u dhowri. haddii laakiin shareecadda gabadhu ay ku dhaqmi weydo aqalkana ay joogi weydo dharka jilbaabkana ay qaadan weydo raggana kolba dhinac u hormarto sida ubaxa geedka ka go-ay bay la mid noqono 20 jirkeega gabadhaasi ma aragtaa inay ku foolxumaan markiiba. 20 jirkee ku boosbooska waad fahmaysaan baan u malayn way foolxumaan khalaas. shareecadda diinta islaamka marka lagu leeyahay ku dhaqan adiga maslaxadaada ku jirta ogow. faatima radiyallahu anha bintu rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam markii ajashu ay ku soo xaadirtay ayay dumarkii ku tidhi reer Madiina meydkayga in la arka mar rabiye bal sidaad meydkayga ragga uga qarin lahaydeen ka tala bixiya bay ku tidhi. barigaan meydka waxaa lagu qaadayay sariir yar oo qofka la dul dhigo oo dadna korka sare la saaro marka la qaadana qofka dhaqdhaqaaqiisa la dareemo. markaas asmaa bintu umays radiyallahu anha oo ka soo noqotay marka ardul habasha waa Jaafar ibn Abi Talib xaaskiisii weeyaane ayaa tiri aniga nacashkeena ka duwan baan ardul habasha ku soo arkayo qofka lagu dhaxridaayo deedna afarta dhinacna mara lagaga xidhayo qofka aan la arkin ba meydkiisa. markaa Faatima radiyallahu anha waxay tiri kaas u sheega Caliyo iyo wiilasheedu aniga ka hala ii sameeyo. deedna markaaba kiiba loo sameeyay maalintay dhimatana kiiba lagu dhaxriday Faatima. aabaheed
محمد عليه الصلاة والسلام سقال بلود أو كلية بالليل أما دور بلود أي كدم بيس أبهد والنبي كان وشيق عليه الصلاة والسلام maalmaha kamid nabigu xaasaskiisa dhex fadhiya ay Faadima radiyallahu anha u timiday ayadoo sida aabaheed u socota aabaheed bay socodkiisa lahayd deena markaas aabaheed bay dhunkaday dhigtu markaa nabigu arrin sir ayuu la siraystay isla markiiba dadka hortooday ku oyday hadana nabigu wuxuu soo celi dhigtaada fariin kale ku sheegay oo sir ah markaa buu u sheego isla markiiba hadana way faraxdo way qosashay maalin dambe المؤمنين عائشة رضي الله عنها أيا كتري سرتي مالنتا أدقي أباها إنك دحيسين مرنا لو أيدي مرنا أتكو فرح دي بليشين وعيتر هو يسر أني أباها إنك دحيس أيا هيدو عنا وشيغي مايو فاطمة رضي الله عنها سرتي انتو نبي ولا ميسن شيغين لأن ضدكاس التربية بالله بري حفظ السر سرت الله بدقف كدحيس ضدك كلا إن لو شيغا ماها إلا دقيستنا ماها laba qof oo sheeko wada labu nabigu yiri qofka dhageysta dhageysigiisa isagana ay karhayaan maalinka qiyaamee aakhiro cadaab naar naxaasa naartiya dhagaha lagaga shabaab rasuulku yiri yusabbu fi udunayhi bu nabigu aanuk hadal macnihi suha laba qof oo arrin sira meel ku siraysanaysa qofka dhageysta bu nabigu yiri ayakuna dhageysiga arin sirtooda laga dhageysanay ay dhibsanayaan qofkaas qiyaamaha dhagaha naar naxaasa lagaga shabaabo nabiga kaleey salaatu wasalaam Faadima radiyallahu anha markaas sirtii nabiga may sheegin intuu nabigu noolaa laakiin maalintuu nabigu adduunyada ka intiqaalay ayaa waxa uu yeedhay Aisha radiyallahu anha oo tiri arintii maalinta ii sheeg hadda waxay tiri hadda waa ku sheegay maadaama aabahay uu dhintay sallallahu alayhi wasallam adduunyada ka intiqaalay hadda waan ku sheegay marka hore wuxuu nabigu ii sheegay uu ila siraysteen la ooyay ajashiisii buu nabigu ii sheego wuxuu igu yiri waan socday anigu iyo Faaduma iska sabir marka labaadna wuxuu ii sheegay inaan ahay haweeneyda jannada ugu barwaaqo badan ee ugu nicmad badan inaan ahay buu ii sheegay xadiis kalena wuxuu nabigu ii sheegay tiri ha ooyina aamus buu yiri Faaduma ehelkayga qofka dhimashada iigu soo xiga waa adiga aamus buu nabigu ku yiri marka 8 bilood 9 bilood muddo yar bay ka dambeysay nabiga sallallahu alayhi wasallam maalintay dhimanaysana waxay ku dardaarmaysaa jirkeeda inaan la arkin markaas nacashkii ay asmaa ku soo aragtay Ethiopia ardul habasha ayaa loo sameeyay kiiba lagu dhaxriday marka dumarkii reer Madiina waxay u ducayn jireen Faatuma ay oran jireen Faatuma ilaahay adduunkan iyo aakhira ceebteeda Allah asture meydkayagina wayna asturtay way dhaadeen ilaa meydka barigoor waa la arki jiray haweenkii oo sariir ayaa la dul dhigi jiray qofku dusheeda u dhaqdhaqaaqayo ayadoo dhimatay oo naftu ay ka dhacday oo dambi xataa marka qofku de amalba ma sameynay hadee toole ayay ka digtoontaa in la arka jirkeyga oo dhaqdhaqaaqaya inakana maanta hablaha haweenkeeni qaarkood mid walba meesha yar jirkeedu ka qurux badan yahay ragga tusaysaaba ilaahay ha laga boqo haweenku waa cawro wadanada Asiyaatiga haweenka magacooda cawro yaaleen cawra macnaha inaka cawrada meel u baan u naqaanha cawrada raguna ma bayna surrati wal rukba laakiin haweenka jirkooda dhan ba cawra ma cadal wajhi wal kafayn labada gacmood iyo wajiga mooyaane inta kale oo dhan gabadha jirkeedu waa cawro in la arka ma dhar ku dhagsan inay xidhato ma dhar jilbaab leeyahay waa inay qaadato quraanku uu sheegay oo markay socotiyo markay gadaal u socotiyo markay hor u socoto aan la kala garanayn qofka meesha maraya ma inan ba ma islaan aan la kala garanayn dharkan aad xidhatay ba qiimo ku yeelaya ugu ee ragga aad istusayso wax macna ay ku sameynayso ma jirto qarba kula hadaan jilbaab qaato indha shareerna qaato oo ayaa ay garanayaan fool xumaayeen qurux badanahay hadday rag wajigaaga arkaan hadii kala macna ma sameynayso macnaha waxa sameynaya waxa weyn waa asturka Anas bin Ammar al-Asma'i ninka la oran jiray Anas bin Ammar inankiisii buu yeedhay abihi baa u yeedhay isaga abihi Ammar baa u yeedhay Ammar al-Asma'i wuxuu Anas aroos baa tahay buu caaw aroos waayahay aba
caqdigii baa dhacay soo maydhaa lagu yidhi dharkan xidhaa lagu yidhi caroosadiina qolkaabay ku jirtaa orada u galbaa laga yidhi halfirso inanka waa nin dhallinyaro ah gabadha ma arkin ayaduna may arkin gabadha isaga waxa u soo doortay reerkiisa inanka waxa u doortay waa reerkeeda halka inaka zamankeenan wiilashiya gabdhuhu biladhan lagu leeyahay way wada sheekaystaan oo way isla socdaan oo way isla hadlaan oo way wada xidhiidhaan oo maxay ka xidhiidhayaan waa macsiyo xidhiidhkaasi waa macsiyo is aragays arkeena waa macsiyo khilaafa shariica weeyaan waxaas oo dhanba shayga arooska haddii khilaafa shariica lagu saleeyana baraka ma yeeshay ogow waa waxa zamankeenan dhallinyaradu nuuca kale u wada noqotay leanno arooska aabihii hooyadii baa sax ahayn marka horeba oo macsiyo lagu dhisay dadna dad cusaada markaa dhalanaya dad ghaafiliin oo qafladu ku badan tahay baa mujtamaca ku soo badanaya laana markii la dhisay reerahan diin laguma salaynin alla ka cabsi iyo alla ka baq asaas loogama dhigine nidaamka gaalada ee fasaadka ayaa asaas looga dhigay dadna mufsidiin bay dhalayaan markaa ubad mufsidiin oo mujrimiin dhalanaya maanta oo wada dhanxiira inankii uu ku qancay aabihii hooyadii taladay u soo jeediyeen caqdigii baa dhacay aqalkii buu galay aroosadii baa fadhida uu salaamay salaamu calaykum waxay noqotay inan yaroo gaaban oo isaga aanan cajabin xagga quruxda isaguna nin dheer buu ahaayoo laankaa la ego qurux badan buu ahaa markaa buu ka naxay iyadii baa markay aragtay ninka quruxdiisa iyo dheeridiisa iyada ninkan uu qabatimay baa la yidhi laakiin isaga ma qabatimin gabadha baa la yidhi dadna markaa iyadii baa ku tiri hamurugin bay ku tiri hamurugoon waxaa laga yaabaa ilaahay khayr inuu kaa soo dhex mariye hadalkaygiibuu ku qanco wuxuu is yidhi kolley aabbahaayo hooyada inantan waxay kuugu dooreen waa khayr ay ku ogyihiine iska barakeeyoo iska bismilayso habeenkii u horreysay leylatu zafaafkiiba uu la seexday ilaahay habeenkiibuu aqbalo caloosheedii durba ilmaa ilaahay geliyey ilmahay dhaleen wuxuu noqday imaam maalik binu anas buu noqday imaam daar alhijra imaam maalik raxmatullaahi calayh caalimu lmadiina 40 sanuu masjidka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu duruusta xadiidka la yidhaha cilmulxadiidka ayuu ummadda ku baraayay 40kaa sanana baa layidhi imaamkaasi magaalada madiina dhexdeeda kaba kuma qaadan markii la yidhi maxaad kabaha u xidhan laadahayna wuxuu odhan jiray ma meesha nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo labadiisi saaxiib ay hoosteeda ku jiraan miyaan kaba ku dul soconayaa buu odhan jiray inantii iyo wiilkii aabbihii hooyadii u hoggaansamay amarkooda waxay ku curteen caalim cilmigiisu adduunkao dhan uu buuxiyey ilaa qiyaamahoo dhan loo ducaynayo madhab imaam maalik baa waa imaam dhan oo madhab leh bal sheekheena shaafici raximahullah waa macallimkiisii wax baray weeyaan wuxuu noqday mucallimkii imaam axmed buu noqday a'immada islaamku sidaasay wax isku barayeen u kala faa'iidaysanayeen gabadh barakaysan wiil barakaysan bay dhalay walad mutiica oo ilaahay adeecsan oo labada waalid adeecsana awlaad baariyana baa ilaahay isagana uu siin saciid binu musayib buu ahaa raxmatullaahi calayh shaykhulxadiid muxadidkii madiina ayaa inantiisuna caalimad bay hayd cilmulxadiidkii aada u taqaanay waa la isku sheegay oo la yidhi sheekha inantiisu waa gabadh wanaagsan qurux bay leedahay diinna ilaahay waa ku qurxiyo waa caalimad oo cilmiga aabaheed ka qaadata mucaawiye ayaa maqlay allaha u naxariistay amiirkii muuminiinta mucaawiye oo markaa shaam jooga oo dowladda islaamka oo dhanna maaragtaane amiir u ah ayaa maqlay dadna markaa buu soo dirtay ergo wuxuu yidhi imaamkaasi maaragtaane saciid binu musayib waxaad ku tidhaahdaan inantiisa hana siiyo oo inankaygaan u dhisayaaye saciid binu musayib waa iska diido wuxuu yidhi inantayda amiirka muuminiinta inankiisa anigu ma siinaya raalli hayga noqda buu yidhi maanta inaku ma diidi lahayn nin madaxweynaha haddii ilmihiisu inantaadoo kaa soo doono adoo faqiiroo miskiinoo miskiin dhex fadhiya ma diidaysid bal waxaad odhan lahayd leylatulqadar baa yimidayba dad adduunya dadku noqdeen maante imaamka dhan ee masjidka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xadiidka ummadda uga akhrinaya
inantiisii muxadisada ahayd waxaa soo doonay amiirkii muuminiinta ee dowladda islaamka markaa adduunka xilliga mucaawiyana dowladda islaamku xilli ay ka taya badnayd oo ay ka ciidan badnayd oo ka dhaqaalo badnayd oo ka dhul ballaadhnayd ma soo marin baa la yidhi taariikhda laanna zamankii mucaawiya zaman alfutuuxaat buu ahaa dadkoo dhan baa la yaabay imaamkii dad badan baa yidhi yaa sheekh gabadha sii amiirkii muuminiinta amarkiisa hadiidan inankiisa sii wuxuu yidhi ma siinaya buu yidhi maxaad u siin weydaa lagu yidhi boqor dhan baa inankiisii u doonay gabadhaade adaaba nasiib leh markaasuu yidhi wuxuu yidhi inantayda marka aan u dhisay inanka mucaawiya ee qasrigii mucaawiya ee Dimashq ku yaala inantayda la geeyo ay saddex hablood timaheega intay qabtaan timaha u tidcaan xagga kalena saddex hablood ay khadam u khidmeynaya ay u khidmeeyaan kabaheegana la hor qaado dharkeedana dhulka sida looga qaado diinteediisa uma dayicin buu yidhi halkay diinteedu mari buu ka yidhi intayda markaas soo cilmigii aan yaraanta ku baray iloobi mayso halmaami mayso uu ka diiday inuu sii uuna ka dhaqaajiyey ardaydiisii ka mid ahaa ayaa sheekhiiba uu ka waayay markaa darsigii fulaan aawaya buu waxa fulaan xaaskiisii baa ka geeriyooto hawshii bay ku jiraan aaskii markaasuu sheekhu darsigii intuu joojiyey isaga iyo talabadii intaysa soo raacaan bay aaskii ka soo qayb galeen dadna markii aaskii laga soo noqday ayuu ardaygii ku yidhi sabir iimaan allaha kaa siiyo uu tacsiideeyey waxa uu ku yidhi inantaydiina waa kuu diyaaray markaa diyaargarowda u kaalay oo guurso ka yidhi ficlan mucaawiya wiilkiisii waa u diiday inantiisii ardayga inantu ay ka geeriyootay ee ardaydiisa ka mid ahaana inantiisii waa u dhisay baa la yidhi boqor wiil u dhalana waa u diiday inantii xertiisii ka mid ahaana gabadhiisii uu siiyey laana dadkaasi adduunyo kamay fikireen aakhiraday ka fikirayeen qofka diintiisay eegayeen idaa aataakum mimman tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuuhu baa nebigu yidhi hadduu ini yimaado qofaa diintiisa iyo dabeecadiisa aad ka raalli tihiin u guuriya haddaad u guurin weydaana arlada fasaad iyo fidnad xun baa ka dhici doonta buu rasuulku yidhi guurkooga diin bay eegayeen dabeecadda wanaagsan bay eegayeen halka guurkeena inaku aan eegayno qabiil waa qoloma lacagna ma haysto Soomaalidu labadaa bay qofka weydiisaa iminka oo ninka gabadha iga soo doonay waa qoloma waa qabiilkee ila qabiil baa diin u noqday Soomaali maanta tagal dhaqaalana muxuu haystaa lacag wallahi lacag ma haysteen miskiidku cilmiga ka dhigtaa dama kutubtu siin buu qoran hawsin waa u diidi ba doodo guriga la rabaa gabadhu inay joogto wixii calaf ilaahay halka ugu keeno ay ku qanacday ku asturto oo ku sabirtaa loo baahan yahay gabadha muuminada ee saabirada ee saadiqada aabaheedii hooyadeedna adeecsana baariyada u dadkeega ilaahay jalla wa ala awlaadeeda wuxuu ka soo saaraa culimo ilaahay ka soo dhex saaraa culimo sifada kale ee dumarka ahkaamta haweenka u khaaska waxa kamida kadalika xukum la yiraahdo ma aragtaan taa'atu zawj inay haweenaydu ay ninkeeda ay adeecdo taa'a oo nabigeena sheegay kaleey salaatu wasalaam ninku naagtiisa haduu u yeedho iska diido waagu wuxuu u baryaabo nabigu iyadoo ilaahay u cadhaysan yahay malaa'igtuna ay lacnadayso haddaan amri lahaa buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qof bini aadan oo sidiisa inuu u sujuudo waxaan ku amri lahaa haweenaydu ninkeeda inay u sujuudaan amri lahaa buu rasuulku yidhi laakiin sujuudda ilaahay unbaa iskale cid kale in loo sujuudo ma bannaano bini aadan noolna in loo sujuudo ma bannaano ku qabri ku jirana warkiisa iska daaba sujuudda ilaahay baa iskale laana sujuudu waa cibaado dul isdhig baa la dul isdhig halka jirkaaga ugu jeceshahay jabhadaada ilaahay u dhig ilaahay qeyrkii halka in loo dhigo uma qalmaan bal makhluuq uma qalmaan halka dhulka in loo dhigo marka hadii laakiin ay dhici lahayd buu nabigu leeyahay qof inuu qof u sujuudo aan amar ku bixin lahaa xaq ay ragu haweenka ku leeyihiin buu nabigu tusinayaa miisaanka culayska uu leeyahay
waxaan amri lahaa buu nabigu yidhi haweenaydu ninkeeda inay u sujuudo. marka ilaahay tabaaraka wa tacaala qof walba xuquuq baa ilaahay siiyey. ragga inaguna xaq baad ku leedihiin oo xaqiina la inkiri maayo. oo nabigeena sallallahu alayhi wasallam nin baa weydiiyo ku yiri dumarka iyagu xuquuqda inagu leeyihiin nabi Allah bal noo sheeg. markaa buu nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri hadaad cunto cuni waa inaad iyadana ay kula cuntaa, hadaad dar xidhan waa inay kula xidhataa. macna dhar baad iibsatay maanta iyadana xaq waxay u yeelatay inaad wax u iibisaa. maaha inaad xaafadana aad tiraahdaa soor yar iyo wax yar karsada adiguna maqaaxid intoo tagto hilibgeel aad ka cuntaa. ma cadaalad baa? cadaalad maaha, waa dulmi. waxaad cunaysa reerkaagu ha kula cunaan buu nabigu leeyahay. soo iibi hilibgeelko waxaad tidhahdaa noo kari annakii carruurta iyo adigu ha wada cunay. waxaad cuni baa nabigu yihi xaaskaadu waa inay kula cuntaa. waxaad xidhatidna waa inaad iyadana u xidhaa. dhar baad gadatay waa inaad iyadana maalinta wax u iibisaa oo tidhahdaa aniguba maanta garan yar baan gatee adiguna ma aragtaane hoo dhar yar ku gada intan yar. allah ku barakeeye. cadaalad. haddaad laba xaas leedahayna iyo 3 xaas iyo 4 xaas hadduu ilaahay ku siiyeyna cadaaladda waa inaad ilaalisaa. kalgacaylka jacaylka taa adu ma haysid oo qalbigu meel buu u badanayaa, laakiin xagga cadaaladda waa inaad waqtigaaga iyo wixii masaariifa reerka si cadaaladda dadka waa inaad u siisaa. oo reer walba wasnigiisa iyo miisaankiisa iyo miqdaarka uu leeyahay masaariiftiisa waa in loo garaabayo dadna waa in la siiyaa. ilaa islaanta 6 ciyaal haysa iyo 2 u wada haysa isku kharash maaha. laakiin waxa la diidan yahay inaad tan aad bishan wax siisatana aanad waxba siinin. taa lama ogole. mid walba masaariifta iyada ku filan iyo ubadkeega waa inaad siisaa. liyunfiq duu sa'atin min sa'atihi waman qadara alayhi rizquhu falyunfiq mimma aataahu Allah. ba ilaahay kan arsaaqada u waasicina annakuba isaguna reerihiisa ha u waasiciyo ha u ballaadhiyo. ka ku koobnay ku yaraynayna ba ilaahay yiri inta uu karaya ba ilaahay xabbixiyo. qofka bini aadanka wuxuu san karin ba ilaahay ma basaarin be. وهداد وحيبسن وين هذو يبسا يدا هداد دلي بو نبي يقول هواك إلا إن لا يرئد بينا شريعة هو الشيكتين وجهك إن لقد لما لأن وجهك يدو وماشى قروح ذا اللقاء يكتب ويانا إن وجهك لقد لما نبروا وين وكم وقنين الدمر كإن لقد دفتم معها إن لعاينا معها إن لعاينا لما أقوله عاين ابو نبي يقول حاسس كينا صلى الله عليه وسلم. بل آداب تدمر كالله ردق مايو شريعة شاكت ننس صحابي أضيبا ويمدي رسولك إساقو إن انتي سيقعنت هيا مركاب النبي قطوسي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله اكبر إنك سعد بن الربيعها إن انت يدي صدو أدي لي بلاك بوكيني مركاب وجهو كد لي علامات باكوتها الله مركاب النبي أعرض رسولكم عليه وجهي سيسبد لي شريعتنا ما سو wada degina kolba in ba nabiga ku soo degaysa dushiisa wuxuu orado u geeyo ha ka jarata buuli sidoo ugu dhiftay yadna ugu dhifatay buuli markay dhaqaaqeen si jeesteen ayaa soo degay waxiga ilaahay nabiga ku soo dajiyay markaa buu nabigu soo noqda way soo noqdeen markaa buu nabigu aradna shay wa arada Allah shay'an akhar ba nabigu sibaan ina kuna dabacsanayn ilaahayna si kalu damcay buu rasuulku yiri iga dhageystay buu nabigu aayadan ay u soo degtay ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع سومهن إلى آخر الآية آية داسة مركة النبي كسو دكتين لقو عدينيو قوامدا إن الرجو أيليه هجان كرير كالرجع أيا إسكالي هجامنتا تلاد واحد كجو أي سوان نينكا حاسك ولا لا تشنكرا نينكو ناك حاسكيسا تلا ويدين كرا لكن جو أن قاد شدر أضيق أيا إسكالي ومحا إلهي قوامدا الرجو واحد كهله ولا بشيء مركه هو إسكو إلهي بكلا فضل با إسكو كرتم معها إسكو قوة معها إسكو دلقاد معها إسكو عقل معها إلهي باك الله فضل عز وجل نعم دمرك الرجل شدة أذيق أو غالبا
halka dumarkana dabacsanaantu ay qaalib u tahay odayga iyo ragga kanaan iyo adayg ayaa maaragtaan naxariis darro ayaad moodaa in ragga ku jirto halka hooyaduna ilaahay qaalib uu uga yeelay inay noqoto hooyo naxariis badan oo damqasho badan oo dhibrin badan marka qawaamada raggu waxay ku heleen waa laba shay marka hore waa abuurka ilaahay baa kala fadilay bini aadanka marka labaadna baa la yidhi maadaama iyagu ay nafaqeynayaan reerka aqalkii iyaga laga rabaa inay dhisaan oo dharkii ciyaalka u soo iibiyaan oo masaariifta ay bixiyaan wixii reerka baahi uu lahaa intay raggu dabooli karayaan ragga looga fadhiyaa baahida inay daboolaan marka qawaamada labada shay ba raggu ku heleen dadna ilaahay gabadhana uu ammaano wuxuu yidhi gabadha saalixada ee suuban ee ninkeedana adeecaysa ee wixii loo dhiibtana ilaalinaysa baa ilaahay yidhi sifaadkaas dumarka lagu ammaanay waa saalixad way wanaagsan tahay oo ilaahayga adeecdaa waa qaanatato ninkeegana way ka dambaysaayo way ixtiraamtaay oo u hoggaansan tahay waa xaafidada waxa lagu yaqaanaa wixii ninkeedu u dhiibtay reerkeedaba way ilaalisaayo way ku fadhidaa haddii reerka ceeb ay ka dhacdana ceebta way qarisaa iyadu ma sheegto haddii ninkeedu ammaano u dhiibtana ammaanada waa u ilaalisaa markaasaa ilaahay yidhi wallaati takhaafuuna nushuusahunna baa ilaahay yidhi ta aad uga baqdaan inay nagu noqoto maaragtaan tu madax taagaysa oo amar diidda inagu samaynaysa baa ilaahay yidhi sidee loola dhaqmayaa marka hadday naagtaadu amar diidda kugu samayso ma ul intoo la qaatoon baa lagu jijibinayaa may halkaa looga bilaabi maayo hadday naagtu amarkaagii ay qaadan weydo amarka ilaahayna ay qaadan weydo amar diiddana aad ka dhareento reerkana inaynan wadaynin aad aragto waxa ilaahay yidhi faciduuhunna baa ilaahay yidhi waaniya u nasteexeeya dad hortiida loogu nasteexayni maayo xataa marka loo nasteexaynayo islaanta maahayn ubadka dhexdeeda maaha si gaara habeenkii adiga iyadu markaad isla keliyowdaan ee qolkiina aad isla degtaan ayaad si gaara ugu nasteexayn ood leedahay xaajiyo khayr allah ku siiya baad leedahay sidaa iyo sidaa iyo sidaa aad u dhaqmayso reerkeenna ma wadayso waa in ilaahay aan ka baqnaa faciduuhunna baa ilaahay yidhi waaniya aadaabta islaamka loo sheegayaa kala dambaynta lagu baraarujinayaa alla ka cabsiga lagu baraarujinayaa diinta lagu tarbiyadaynayaa naseexadaasa in muddo lagu wadayaa muddo badan haddii ay taa wax ku qaadan weyda baa ilaahay yidhi fahjuruhunna fi lmadaajici baa ilaahay yidhi jiifka uga tega baa ilaahay yidhi ha agseexan macnaha daad doonto aqalkan uga baxmar marka qaarkood masaajidaada iska seexo oo aqalada jaarka iska tago wixii nin dhex mara cidna ha u sheegin laakiin afka uun yar buuro iska yar aamuso aqalka markaad soo gashana iyada ha dirdiran inay hablahaaga dirdiray ubadkaaga Soomaalidu markay caroodaan islaantii aqalka ka saaraan halkana shariicadu waxay leedahay may ninku waa inuu ka hijroodaa baa la leeyahay gabdhaha cawradooda dibadda looma saaro ceebtooda banaanka looma saaro aqalkay gabadhu in iska fadhiday ku asturan tahay hadday dibadda u baxdo ceebtaadiba adiga banaanka u saaray ogow laakiin adiga la rabaa maadaama nin aad tahay oo islaantuna amar diida ay kugu samaysay naseexadii waanadii muddada aad ku wadana ay qaadan weyday adiga laga rabaa marka inaad aqalka uga yar tagto gobasha ayaa laga dheeraanayaayo ciyaalka la iska dhex seexano adaa iska khidmaysano biyahaad iska soo dhaansano dharkaad xidhanaysa adaa iskala soo baxayo oo hablahaagaad wax u diranaysaa aabba quraaca ii keeno aabba qadada ii keeno islaantu markaa waxay odhanaysaa odaygii maxaa helay aqalka ku noqonaya markaa ciriiri hijrada aad ka hijrootay haddii ay wax ku qaadan weydo waa tallaabadii labaad ilaahay wuxuu yidhi wadribuhunna markaabaa ilaahay yidhi garaaca haddaba sidee loo garaaci markaa haddana mabud baa lagu garaaci hangool soo ma taqaanaan reebbay maxaa tiri hangoolka ya waa isaga la waay hangool bay dumarka la dhacan la dili maayo tusbaxa yar iyo cimaamada yar iyo biyaha yaroo weysadoo lagu shaydhiyo iyo ya saasaa loo tarbiyadeynaya leanna waa ubad waa ilmo yaroo kore weeyaan islaamtu sida ilmahaaga yar aad u ilaalinaysid baa la rabaa inaad iyadana u ilaalisid maxaa yeelay 10 cunug ee aqalka kuu dhex joogta iyadaa kuu dhashay iyadaa ku tacabtay warshada laga soo saaray ubadkaas waa caloosheedii ogow
marka warshadii haddaad iska jijibisa ka waran yakhluqukum fii butuuni ummahatikum khalqan min bacdi khalqin fii dulumaatin halaatin baa ilaahay yidhi dalikum allahu rabbukum yakhluqukum ilaahay waa inagu abuurayaa meeshee caloosha hooyadiin dhexdeed waa raximka dhexdiisa fii halaaa dulumaatin baa ilaahay yidhi madheerta hoosteedu waa madow raximka dhexdiisu waa madow caloosha dhexdeeduna waa mugdi saddexdaa mugdi hoostood ayaa ilaahay qofka bini aadamka kusoo dhex sameeyey marka calooshaasi taada maaha taydana maahayna waa islaan haweenayda weeyaan maadaama haweenaydu ay warshad ilaahay uu ka yeelay ubadkaagaasi lagu soo dhex abuuray ayaduna naaska ku wada nuujisay tacabna iyada uu ka galay kugu soo tacabtay kursiintooda marka ha ku santaagin ha xumaynin u sabir u dulqaado u ducee haddaad garaacaysid sidaad u garaacaysidna usluubtaasi culummadu ay sheegaan baa dumarka lagu tarbiyadeeyaa in loo nasteexeeyo qur-aanka ay noo sheega usluubta in loo nasteexeeyo la wacdiyo hadday waanada wax ku qaadan weydo in aqalka laga yar dheeraado laga hijroodo oo faraashka gogasha looga dheeraado marmarka qaarkoodna maaragtaan meelaha la iska tago laga warwareego hadday taa wax ku qaadan weydana waa in markaa la garaaco baa ilaahay yidhi daadna markaas ilaahay muxuu yidhi falaa tabquu calayhinna ha ku xadgudbina baa ilaahay yidhi xadgudub la dooni maayo dumarka in xaqooga lagu xadgudbo xuquuq bay leeyihiin marka saalixaad xuquuqdiina ilaahay baa sheegay bal meesha shareecada islaamku ayna dhigtay eega sida laynii tarbiyadaynayo haddii aad dembi aad samaysaan oo ragga madaxtaaga aad ku samaysaan usluubta raggu ay niila dhaqmi lahaayeen ilaahay baa caddeeyoo sheegay ilaahay siduu ilaahay nii jecel yahay eeg ilaahay uu xaqiina u ilaaliyey suuradan baa layniigu magac daray suurat الnisaa anagu qur-aanka kuma hayno suurat الrijaal laakiin suurat الnisaa qur-aanka waa lagu hayaa fa ilaahay tabaaraka wa tacaala han u soo noqono han toobadkeenno ta kale waxaa laynaga rabaa awlaadana han tarbiyadayno oo awlaaddeena waxaan ku tarbiyadaynana waa maxay akhlaaqda wanaagsan ixtiraamkaan baraynaa xaqa ilaahay baan baraynaa xaqa labada waalid baan baraynaa aayadan fii suurati ataxriim ilaahay uu ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara aayaddaasi sababu nusuul cali bin abi aalib markuu fasiraya wuxuu yidhi ehelkiinana diinta bara bay ka dhigan tahay buu yidhi naagtiina naar ka badbaadiya eheladiina naar ka badbaadiya macnaheedu eheladiina diinta bara marka diintan ubadkeena baraynaa diintu waa maxay qur-aankaan baraynaa xifd qur-aankan xafidsiinana ubadkeena dadkii hore iskuullada dhigtay way dayacmeene bal intan dambe un haddaba qabateena ubadkeena qur-aanka hanbarno oo sunnada nabigeena hanbarno calayhi salaatu wasalaam oo sunnatu caada sunnada la yidhaah ee dhaqanka ee guryaha dhexdeeda ah ubadkeena han ku barbaarino sunnatu caada waa maxay jiifka aadaabtiisa hanbarno dharka la xidhanaya aadaabta dharka loo xidha hanbarno cuntada marka la cunay aadaabta lagu cuno hanbarno aqalka marka la galayo ducada lagaga baxa hanbarno aqalka marka la soo galo ducada lagu soo galo hanbarno marka suuqa la marayo ducada la akhrista hanbarno habeenkii marka la seexanayo aadaabta iyo ducada la akhrista hanbarno ubadkeena waa inaan yaraantooda waa inaan barnaa waxyaabaha la yidhahdo sunnatu caada waa ilmuhu ku barbaaraa maaragtaanay adkaarta nabigeena calayhi salaatu wasalaam لأن التلابة النبي محمد ما قادم بالليلي إلا وحو قاد جري ذكر يدعو لها هدو أقلك قال يدعو آخر جري هدو أقلك كبح يدعو آخر سنجري هدو بيت الميقى قال يدعو آخر سنجري هدو كصوبح يدعو آخر سنجري هدو جيفنا يدعو آخر سنجري هدو طريقة مرة يدعو آخر سنجري هدو بشبلة تدعو آخر سنجري هدو سيحنا يدعو آخر سنجري هدو در حدنا ينبي يدعو آخر سنجري هدي المدرسة النبي يدعو آخر سنجري hadday qof dhinto geeri la soo sheego duco akhrisan jiray dabayl hadday timaado nabigu duco akhrisan jiray roobku markuu daayana duco akhrisan jiray bishu markay balata nabigu duco akhrisan jiray daabad hadduu fuulay duco akhrisan jiray hadduu safrayo duco akhrisan jiray ducooyinkaasi waa inaan ilmihiina ku barbaarinaa yaraanta kutubtan yaryar ee akhrista xisnul muslimka iyo ama adkaar nawawi aqalada haynoo dhex yaalaan waa kitaabka markii la alifay reer dimashq ay odhan jireen bici daara washtari adkaar qofkay markii la imaamkii kitaabkii uu sanifay waa la taabacay oo maktabada ayaa la dhigay
kitaabka soo iibso orodoo marka qofka lagu yiraahdo ayay oran jireen dadka ducafada ee fuqaradu lacagan ku iibsanaa ma haysano markaa bay oran jireen kitaabku yuuna ka dhamaanine daartaada iibiyo kitaabul adkaar soo iibso bay oran jireen inagana zamankeena kutubtiiba xataa wax akhrisanayba uu sii yaraanaya mobile baa loo wareejiyay wixii oo dhanba war mobileka ma innaka la ayuha muslim maktabada yaanan la baabiin oo masaaxifta masaajida inoo taala yaanan laga hijroonin waxaan mobilka lagu shubay run maaha mar kaliya laga saari kara gabigiisaba oo dagaal weeyaan la inagula dagaalamayo si shariicadina loo tirtiri lahaa ay aalaadka loo sameeyay inagu aan leeyahay khayr baa ku jira waa laga duubaya war wax khayr oo ku jira ma jiro aalaadkan ya sheekh khayrka ku jira iyo sharka ku jira mid ka badan sharka ku jira ayaa badan waxaad soo galaysaa masaajidan oo salaatul jumcadi ka laga akhrisanay suuratul kahf kitaabka quraanka musxafkiina laga hijrooday corona intuu yimidayna waxaad maqlaysaa wadana dhan oo carbeed oo la lahaa kutubta masaajida taala isku taabanina oo ma quraanka ilaahay ba laga qaadaya corona inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un ma quraanku waa dawe taabashadiisa dawa iska daa wax kale qaadidiisa cibaada akhriskiisa cibaada وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء بالد شفاء دواء حتى ما هو شفاء حبة السوداء يدوى دواء لكن القرآن هو شفاء ملبك الصافقون هو شفاء شفاء هذا ما قاشوا محي لبدا شيء حنوك الله استعماله ما بتجان بالي وي بابيا ملبك يا قرآنك يعني القرآن لقى هجرون وبتك قرآنك الله برو وأحاديث أقلها لغو أخريو وسورة البقرة أقلها لغو دح أخريو لا تجعلوا بيوتكم مقابر بنبي الذين قبورها كدقنا فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة سورة البقرة أقلها دحديث لغو أخريو النبي يقول أقلها شيطانكم أسوق له وكفرحا سورة البقرة وحا لغو أخريو كل يوم شاني أفرطن دقيقه هذا بريدة مالو فريسة 30 دقيقة تكون بين سورة البقرة 30 دقيقة 40 دقيقة واجي مركو بريبا ما كري وين القرآن آخر سنة فيسبوك ساعة الدنيا هامنا دبا لغو سوجي داي قلوبتي بصير دي منيسا هذا دارت أمت قرآن كي كالفوري كاليلا أو آخرين كاليلا أو مساجد فريسة كاليلا أو دين تو دي قد دغمي كاليلا هذا دارتو وعاد دليل أوتا أمت قلوبتي دي بصير دي منيسا قرآنك أخرس هو عباده أيجديس هو عباده قادديس هو عباده كردقنكيس هو عباده برشديس هو عباده قرآن كان أخرينا قلدنا قرآنك كل أخرينا رنتي زمن كان قال له وزمن أدق بان قال له هديت ولا زمن أدق أو علنا لينو لدق على ما أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة صلاة دي بالهين ما أنت صلاة التباعد وحليلا أيا ودنا دي إسلام كودن لغو سور رغي ولا أدري صلاة سيدي كوان صحيح علماء ويدية إلهي هنوصل نقول دقال بالي نقول الجراح شيء قدام شيء أقوه الرئي دينتنا تبي دونتان بان نقول أمانة دا قف آمن اللواي دونا قف لا آمنو تلا أمدادية تلا رير لغو آمن اللواي دونا بو نبي قولي قف أمانة اللواي دونا شيء قدام بي دينتنا أدواي دونتان وصلاة بو نبي قولي وصلاة ما أنت وحا لغو دقال لما وصلاة دي مر لا يرى مساجدها كنت كننا يا مر لا يرى ما أرثانا كالفقادة سيدي نبي قصي كدول أتو كذا سيدي بوديستو أي عباديستان عبادة النار كو دبك عابدية عيدة عابدية سيدي عباديستان بالقولي هادوكن إلهي وعابد أو سيدي نبي محمد إلهي هو عابد سيدي صلاة هذه عبادة أنا لو أقبلين ده قال بوين بين نقول السعودية إنكنا ما توان هرودنا ولا ليال نرجع إلى الإسلام دينتنا كسو نقولنا إلهي كتاب كيسان آخر السنة وحن جوز زنبيتك كو قبسنا دينتنا نفت هذا وا هي دينت هذا وا وحال الدنيا يا ماشى ما أنت أرنتو أي مريسو نفتهم وين هذا لقربا دينتي ما وين الله الناصر بس الله ينودم بداف الله ينودم بداف صادرتين إن شاء الله عن توبتك أنه وردها حكا كعنا حرق إلهي هنقبسنه هوين كنا ما ركتاني سيرة الصحابيات كأخرستا مدارستا علماء وأي نفر أن كحرمة قرآن كحفظية
haddaad xufaad noqotaan ood gabadh mutadayinada aada noqoto duriyad barakaysan baa ilaahay calooshaada ka soo saari doonaa. allahna inagu anfaco. aquulu maa tasmacuun وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا بيننا ولا معنا شقيا مطرودا ولا محروما. يا مقلب